shirweynaha samawade oo isugu jira ducooya ay ka tashiga beesha Axmed Yunis ayaa si habsami leh uga socda deegaanka qolqolka oo hoos yimaada degmada Qulujeeda gobolka Awdal shirkani oo kulansaday qaybaha kala duwan ee madax dhaqameedka Soomaaliyiinta cuqaasha waxgaradka aqoonyahanka iyo dhalinyarada ayaa sidoo kale furitaankiisa waxa kala soo qayb galay madaxda kala duwan ee dawladda Soomaaliland gaar ahaan kuwada ku metela gobolka Awdal iyo degmada Boorama ugu horeyntii shirkani ayaa waxa furay suldaanka guud ee beesha Axmed Yunis Suldaan Xasan Xadi Baadi isagoo ka waramay ulajeedada kulankani iyo shirkani duco isagoo faahfaahin ka bixinaya waxa uu yiri waa duco reerku ducaysanayo waa duco dadweynaha aan ugu dhiganay madaxda dawladda gobolka Awdal aan ugu yeernay inay nala ajiibaan ducada hadda la qaybsadaan ilaahay halka aan ku barino samada inoo irmaaneeyo reerkana loo duceeyo annaguna aridin ducayno ilaahay dabki in mustaqbalka iyo hadana isku xidhnaanta iyo hadana isku aamusanaanta iyo ismaqalka idinkuna loogu ducaysa ilaahay dabki dawladana mucaarid kuma nihin wada shaqayn baan hadana isku leedahay hadana uguna ballanqaadayna inaanaa fogaynin haddayna iyaduna fogaynin annagu fogayn mayno rag iyo dumar yar iyo weyn sidaasay noo ballanaan leenahay haddaanay dawladdu ina fogayn ma fogaynayno nin walowma maqal nin codku ka sheegaana yuuna jirin nin tallaabo u qaadaana yuuna jirin wixii xaq aan ugu leenahay miiska dushiisaan ku xisaabtanayna haddii ilaahayna iyadoo madaxda gobolkuna wakiil inooga yihiin majmacan isku yimiday ilaahay ha ka dhigo majmac marxuuma oo naxariisto macsuum oo dambiga laga ilaaliyo maqfuur oo loo dambi dhaafo Allah inaga dhigo suldaankaygu sidoo uu sheegay reerku wuxuu yimiday inuu duceeyo ilaahay roob weydiiyo iyaga iyo dadka kalaba oo bariyo ilaahay aqbalo oo meesha ku tashado uu hadi doonaa daniisa dhexdiisa iyuu ka hadli reerkan halkani ducuu iskugu yimiday wax kale oo cid kale oo dareen kale oo u yimiday ma jirto haday cid kale dareen ku jirta iska saarto ana xubin kamida gudigii qabanqaabada ee reer Axmed u saaray inay soo qabanqaabiyaan xafladan maanta ay u fadhino waxaan aad ugu faraxsanahay in maalinkan oo kale aynu soo gaadno maalinkan inaynu soo gaadno ومالين سجود وتوينون ورسوجي وباشا رير أحمد وراوا حضور تابعوي تجبريل يونس وعلى هاي وحي اللي نقول مجيران شري دقناهان تراهان نقول دم فرديني وننقل سوينا إن شاء الله وحومت دقاه رير كي جبريل يونس مقعيسي سوعليا أيام فردينا الله مجيرتو بدينا على كتشجعنا طلابة وحورنا لورصدا تروينا جبريل يونس تروينا محوها مكاهيل سمرون لجارسيو باشا الرئيس أحمد وبيرها هو وجبريل يونس وباشا وحا أردن أفر بيرها صومالي لين بالبالون أردن تاي وحا أردن رقم با أردن سياسيين با أردن تجاريين با أردن دليلنا ودن وبيت إنتاج ما أنت ودن تيجي كذا وما كم ما إنتاج وبيت ودن تاوي دولة وحن جالسيننا إن بيش ما تعلق خسريسي أي إسشاكتي بلا كلا جبريل يونسنا أي إسشاك دونان يلا هل كعطينا وعددي جبريل يونس وعددي سمرون وعددي Soomaaliland kolka la joogo gobolka Awdal Axmed Yunis ee walaalaha sida loo sheegay weeyaan ee cuqaasha hore u sheegtay waa hurmiidkii Jibriil Yunis waxaan ugu ducaynaynaa Ilaahay idinkii miraha ka soo baxay inay noqdaan mira Axmed Yunis wax u tara waan idinku ducaynaynaa midnimada reer Axmed waan idinku ducaynaynaa in Ilaahay idin mideeyo وهالك أي كتول ميسو سيدا هرب الله سو شيء باشا خير حمد وحنا لا هاي
martiqaadka aad nagu martiqaadeen shirkiina inaan ka soo qayb galno aad iyo aad baan iniga mahadnaqaynaa waana iniga filaynaa shirkiinaas inuu noqdo shirkii jibriil yoonis wax ka bedelayay magaca axmed yoonis kabadhihii lagu fadhiyey buu ahaa ama ururihii buu ahaa magaalada boorama ama tiirkii la harsanayay buu ahaa kala daadsanaasta iyo burburka reerka guud iyo reerka hooseba ku yimid inaan ka soo kabanno ayaan diyaar u nahay halka si gaara uga salaamaya oo ugu ducaynayaa beeshayda aan curadka u ahay ee beesha reer axmed yoonis oon anugu si gaara u ahay degaan iyo dal iyo wax walba aan u ahay oon u ahay curad u ahay aad baan u salaamayaa suldaanka suldaan baadi ee beesha reer axmed yoonis oo maantana suldaanba noo wada ah aad baan soo dhawaynayaa wixii lanagu hogaamin lahaa baa ka soo bixi inuu ilaahay wax khayr laynaga soo bixiyana waan niigu ducaynaynaa axmed yoonis cismaan ee halkan ku qabsatay xafladda iyo muxuu ahaa ducada iyo shirkaba waan soo dhawaynaynaa shirkan asalkiisu wuxuu ka yimiday oo daba joogaa shirkii beesha hore weelaa ugu yeelatay wax badan oo beesha reer axmed iyo jibriil yoonis u yaalla oo qabyo ayaa jira beeshani waa beeshii hoggaanka u haysay jamhuuriyadda somalilandna inay badbaado suurtogeliyey rag badan oo ku suntan taariikhda somalilandna ay madax ka soo noqdeen inaan halkan uga bishaareeyo qolqol oo aan joogno insha allahu tacaala inaan u soo dhammaynay oon ugu maqnayn in riig laga qodo insha allahu tacaala taasina inay soo dhammaatay idinkuna aamiin dhaha insha allahu tacaala halka sidaad ka arkaysiin magaca waa samawade magaca ayaa isfasilaya magacu wuxuu kuu sheegayaa ujeeddada xaggan loo yimiday inuu wanaag ka soo baxayo halkaa joogtay inay tahay hormeedka gobolka awdal baan markhaatiga ahay waxgaradka gobolka awdal baan inay yihiin baan markhaatiga ahay inay dabarka iyo araxda galaguusiga yihiin baan markhaatiga ahay dad wanaagsan oo ixtiraam mudan inay yihiin ayaan markhaatiga ahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan nila joogo ducadan qiimaha badan ee maanta aan loo kala hadhin ee booram oo dhan halkan ay joogto aad baan ugu faraxsanahay inaan igala soo qayb galo waxaana niga codsanayaa ducada maanta aad loo fadhiyo inaanna laygu daro aniga guddoomiyaha gobolka laba nin oo inaga maqan ayaan u ducaynayaa xanuunka haya ilaahay ka dulqaado nin waxa weeyaan ninka la yidhaahdo ilka case maxamed axmed ibraahim xildhibaankii hore ee golaha deegaanka wuu xanuunsan yahay allah ka dulqaado ninka labaadna waa dhakhtarkeennii doctor qaws wuu xanuunsan yahay isnayna lama joogo allah ka dulqaado sheekh xasan dahay iyo inta kale inaga xanuunsanna wayna la joogaan ducada wayna ku darayna allah ka dulqaado haddaan anoo afkii dowladda ku hadlayaa waxaan ballan qaadaynaa oo aanu idinku ognahay oo madaxweynaha qaranka somalilan iyo madaxweyne ku-xigeenka baan idinka sidnaa wax allaala wixii reerkaa ka maqan ee dowladda kaga maqan ee tabasho ah waa la dhammaynayaa waana ballan aan idinka qaadnay horena dowladda reerku ugu jiray madaxda qarankana waa ka mid hadday wax dhiban yihiin intaana waa ballan suldaan anoo ku hadlaya afkii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa idinka ballan qaadnay wax allaala wixii tabasho hoose jirta inaan dhammaynayna waxaan ka markhaati kacayaa muddadii 5 bilood aan joogay reerka halkaa fadhiya wanaag iyo sharaf iyo wada shaqayn mooyee inaan xagtin igaga iman anigoo guddoomiye gobolka